وتسلامنتين أصحابتك سو هذا مقال عصب وحن مقال كان كيجي تونا أما وعوان كيسو نقون تونا كهر كلن كالكلاسي كذا هذا مقال كان وحسفها فاسن وجيجي تونا أهمية كلن كدروف لبدا كوحود sidoo kale maqnaanshaha iyo shaxda la filaya inay ku soo galaan labada kooxood hadaynu ku horeyno ahmiyada kulanka kulanka El Clasico waa kulanka ugu caansan sidoo kale waa kulanka ugu daawashada badan daafaha adduunka marka isaga sidaas ayaynu ku dhaafi doonaa oo wax badan kama sii oran doono hadaynu hadda u guda galno duruufaha labada kooxood iyo xaaladaha ay ku kala sugan yihiin kooxaha Real Madrid iyo Barcelona aynu ku horeyno kooxda Barcelona hadaynu eegno labada dhinaca horyaalka La Liga iyo sidoo kale Champions League horyaalka kooxda Barcelona waxay ku jirtaa kaalinta koobaad waxayna isku dhibcayihiin kooxda Real Madrid balse waxay kaga haysaa hogaanka goolasha hadaba dhinaca kale ama dhibka kooxda Barcelona ayaa ah dhinaca Champions League maadaama ay kooxda Barcelona lug hadda kala baxday aynu oran karno koobka Champions League sidoo kale ay adkaatay kooxdu inay ka sii qayb qaadato ama ay sii ciyaarto koobka Champions League dhinaca kale kooxda Real Madrid iyaduna horyaalka hogaanka ama waxay ku jirtaa kaalinta labaad oo isku dhibcayihiin kooxda Barcelona halka kooxda Real Madrid Champions League toddobaadkii la soo dhaafay kulankii u dambeeyay ay ciyaartay ay si rasmi ah ugu baxday wareegga 16 maadaama uu fududaa ama aynu oran karno kooxihii kula jiray gruupka ama kooxaha isku gruupka hayeen maysan ahayn kooxa awood leh ama kooxa u dhigma kooxihii ay Barcelona kula jirtay gruupka sidoo kale hadaynu eegno maqnaanshaha labada kooxood kooxda Real Madrid markaynu eegno shaxdeeda ama ciyaartooyda ka maqan waxa kamid ah ciyaartooyda ka maqan ama ciyaartooyga ugu muhiimsan ee kooxda ka maqan ayaa ah golwadaha kooxda ee Thibaut Courtois oo kamid ah xidigihii kooxda Real Madrid xilli ciyaareedka hore sidoo kale xilli ciyaareedkan balse inta kale kooxda Real Madrid shaxdeeda ciyaartooy ka maqan ma jirto dhinaca kale kooxda Barcelona sidoo kale waxa kamid ah ciyaartooyda ka maqan mid kamid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda Barcelona kaas oo saameyn weyn ku lahaa kooxda waxaana weeyaan ciyaartooygaasi Ronald Araujo hadaba saameyn intee leeg ay ku qaadan doontaa labada kooxood haday kooxdu badiso ama haday kooxdu bareejo gasho ama haddii kooxda laga badiyo kooxda Barcelona haddii ay badiso kadib markii ay kooxda Barcelona ka timi koobka Champions League ay kulamo badan ka soo baxday ama kulamo adag sida Bayern laba kulan oo Inter ah sidoo kale ay kooxdu niyad jab kala soo baxday kulanka kadib markii ay kooxdu ku guuldareysatay inay kulankii ugu dambeeyay ka badiso kooxda Inter Milan haday kooxda Barcelona horta marka hore kooxda Barcelona iyadoo intaas oo ka timaaday adag ama kulamadaas oo adag sidoo kale niyad jab kala soo baxday Champions League waxa kooxda niyad jab kala ku sii ah inay ka hortimaado kooxda Real Madrid oo ah kulanka ugu muhiimsan La Liga hadaba Barcelona haddii ay ku guuleysato inay kulankan badiso ay 3 dhibcood ka qaato kooxda Real Madrid laga yaabo inuu noqdo kulankii ama sababtii ciyaartooyda kooxda Barcelona ee loo siin lahaa koobka Champions League iyo niyad jabkii oo kooxdu ay awood ku saari lahayd sida horyaalka La Liga sidoo kale haddii ay kooxda Barcelona bareejo gasho waxa dhici kara inay kooxdu la sii tartanto ama ay kula sii tartanto kooxda Real Madrid horyaalka La Liga ay kooxdu la tartanto ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka maadaama kooxda Barcelona markii ay soo iibsatay xilli ciyaareedkan bilowgiisii ciyaartooy badan soo iibsatay ahdaaftii kooxda waxa kamid ahayd in kooxda Barcelona koobka Champions League ay gaadho wareegga guruubyada wixii ka dambeeyay wareegga 16 sidii dhamaadka afar dhamaadka iyo sidoo kale semifinalka halka laga rabay kooxda Barcelona in horyaalka La Liga ay la tartanto kooxda Real Madrid ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka hadaba kooxda Barcelona haddii laga badiyo kulankan waxa uu noqon karaa kulankii burburin lahaa riyada taageerayaasha kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan maadaama ay kooxda ka soo baxday Champions League ama ay lug kala soo baxday koobka Champions League haddii ay haddana gool darro ugu sii darsanto oo Real Madrid ay 3 dhibcood hogaanka kaga qabato waxa dhici karta inuu isbedel ku yimaado ciyaartooyda iyo sidoo kale tababaraha kooxda Barcelona dhinaca kale haddii aynu eegno kooxda Real Madrid kadib markii ay u baxday wareegga 16 koobka Champions League sidoo kale aanay kooxda ahmiyad siin labadii kulan ee ugu dambeeyay Champions League kooxdu haddii ay kulankan badiso waxa la oran karayaa kooxdu inay 3 dhibcood Barcelona kaga qaban doonto oo kooxdu sidoo xilli ciyaareedku bilaabmay kulamada ciyaarto dhan waa ay badisay marka laga yimaado kulankii ay Osasuna la ciyaarisay toddobaadkii hore horyaalka La Liga sidoo kale Real Madrid haddii ay bareejo gasho kulanka waxa sii socon doona tartanka u dhaxayn doona kooxda Barcelona iyo Real Madrid ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka balse haddii kooxda Real Madrid laga badiyo waxay kooxda Real Madrid ahmiyadda saari doontaa ama isku day doontaa inay soo laabato maadaama ay kooxdu labada kulan ama horyaalka Champions League wareegga 16 ku baxday sidoo kalena aanay ahmiyad siin doonin labada kulan ee u haray wareegga guruubyada kooxdu waxay awood u saari doontaa horyaalka La Liga sidii ay u soo gaari lahayd kooxda Barcelona haddii ay kooxdu ka badiso weeyaan waxaan intaa ku soo eegnay labada kooxood iyo sida ay noqonayaan xaaladooda iyo waxyaabaha la filayo haddii ay kooxuhu badiyaan ama bareejo galaan ama laga badiyo midkood hadda waxaynu u guda gali doonaa labada kooxood awoodahooda iyo sidoo kale labada kooxood meelaha ay ku kala jilicsan yihiin
haddaynu ku horeyno kooxda Barcelona awoodaheeda waxaa ka mid ah barasharka ama cadaadiska sidoo kale kooxda Barcelona awoodaheeda waxaa ka mid ah daafaca iyo weerarka oo kooxda Barcelona waxyaabihii ay xilli ciyaareedkii hore tusaalahaan oo kale kulankii El Clasico-dii hore ee 4-0 kaga badisay kooxda Real Madrid waxyaabihii kulanka ka caawiyay ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah barasharka iyo cadaadiska oo kooxda Barcelona ay kulamo badan ku badisay oo kulankaasi ka mid ah sidoo kale kooxda Barcelona haddii aynu eegno xilli ciyaareedkan daafaca ayaa ka mid ah awoodaha kooxda oo kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga sidoo kale horyaalada shanta ugu waaweyn qaaradda Yurub waxa weeyaan kooxda Barcelona kooxda daafac ugu fiican sidoo kale waa kooxda ugu badan ee clean sheet samaysa haddaba daafacu waxa uu ka mid yahay awoodaha kooxda Barcelona sidoo kale weerarka ayaa ka mid ah kooxda Barcelona oo Barcelona weerarkeedu waxa weeyaan weerarka ugu fiican horyaalka La Liga haddii aynu eegno meelaha ay ku jilicsantahay kooxda Barcelona waxyaabaha ay ku jilicsantahay waxaa ka mid ah masaaxooyinka haddii kooxda lasoo dhaafo barasharka oo kooxda Barcelona haddii ay samayso barashar oo mar walba ay samayso kooxdu haddii lasoo dhaafo khadka dhexe ama khadka koobaad ee barasharka taasoo ka dhigan khadka koobaad ee daafaca oo noqon karaya ciyaartooyda weerarka ama ciyaartooyda khadka dhexe waxaa banaanaanaya ama waxaa jiraya ciyaartooy ama waxaa soo baxaya masaaxooyin u dhexeeya ciyaartooyda ka ciyaaraya daafaca iyo sidoo kale ciyaartooyda khadka dhexe ka ciyaaraya oo waxaynu arkaynay markii ugu dambeysay kulanka ugu dambeeyay ay kooxda Barcelona la ciyaartay Inter Milan sidoo kale waxyaabaha ay kooxda Barcelona ku jilicsantahay waxaa ka mid ah soo laabashada ama isbedelka oo kooxda Barcelona isbedelkeeda marka ay kubadda daafaceeda ka kaxaynayso ay goolaha kale kooxda kale geenayso ay weerartamayso kooxda Barcelona waqti ay ku qaadataa oo ma jiro ciyaartooygii kubadda jiidi lahaa ama ciyaartooygii kubadda boobsiin lahaa ee weerarka toos u geyn lahaa sidoo kale gaabiska waxaa ka mid ah ay kooxda Barcelona ku jilicsantahay gaabiska soo laabashada oo kooxda Barcelona marka la soo dhaafo ciyaartooyda weerarka oo kale waxa ku soo laabanaya ama ciyaartooyda soo raacanaya oo kale ayaa adag oo markiiba Barcelona daafaceeda ayaa la soo gaaraya maadaama ay ciyaartooygii loo gasa ama ciyaartooygii la soo dhaafaba ay waqti ku qaadanayso inuu kubadda soo gaaro dhinaca kale haddaynu eegno kooxda Real Madrid iyo waxyaabaha ay ku fiican tahay iyo waxyaabaha ay ku jilicsan tahay kooxda Real Madrid awoodaheeda waxaa ka mid ah counter attack ama kooxdu inay daafacato tusaalahaan inay khadka dhexe ka daafacato inta kadib kooxdu ay baasaska ugu gaaban ama baasaska ugu yar ay ku gaari karto goolaha kooxda kale sidoo kalena kooxdu waxyaabihii xilli ciyaareedkii hore ay ku fiicnaa ay ku qaadeen koobabka ay qaadeen sida Champions League iyo La Liga waxaa ka mid ah kooxdu inay fursadaha ugu yar ay helaan ay goolal ka dhalin karaan sidoo kale waxyaabaha ku awood ku leedahay Real Madrid waxaa ka mid ah orodka iyo ciyaartooy dheereeya inay haysato oo kooxdu marka weerar ay qaadayso inay heli karto ciyaartooy dheereeya sida Vinicius Junior iyo Federico Valverde oo xataa labadan ciyaartooy ay soo laaban karayo marka ay kooxdu bedelka kale ay sameynayso oo kooxdu marka weerar lagu qaadayo ama iyagoo weerartamaya marka kooxda la soo weeraro in ciyaartooyda garbaha sida Valverde Vinicius ayaga laftoodu soo caawinayaan daafaca ay soo laaban karayaan marka ay weerar noqoto ciyaartooydaasina ayaguna weerartamayaan ay noqonayaan ciyaartooyda ugu horeeya ee weerartamaya sidoo kale haddii aynu eegno meelaha ay ku jilicsan tahay kooxda Real Madrid waxaa ka mid ah daafaceeda oo kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkii hore waxaa ka mid ahayd daafaceedu waxyaabihii ama xubabkii ugu awoodda weyn ay kooxdu isticmaali jirtay oo xataa kooxdu waxay awooday inay finaalka Champions League clean sheet la soo baxdo oo iyadoo inta badan kooxdu daafacanaysa finaalka haddaba xilli ciyaareedkan sidoo uu bilaabay kooxda Real Madrid horyaalka La Liga kulamadii ay ciyaartay dhamaantood marka laga yimaado kulanka ugu dambeeyay ay la ciyaartay kooxda Getafe kooxdu way ku guuldareysatay inay samayso ama inay la timaado clean sheet sidoo kale kulamada laba kulan oo Champions League ah oo labadii kulan ugu horeeyay marka laga reebo kulamadii ka dambeeyay kooxdu way ku guuldareysatay inay clean sheet samayso waxyaabo badan ayaa iska bedelay daafaca sidoo kale waxyaabaha ay ku jilicsantahay Real Madrid waxaa ka mid ah daafaca ama barasharka oo kooxda Real Madrid marka ay kubadda weydo oo kooxda iyadoo weerartamayso kale marka kubadda ay kooxda kale ka qabsato waxay kooxda Real Madrid samaysaa barashar fudud kaasoo u ogolaado kooxda ka soo horjeeda inay kubadda 2 ilaa 1 daqiiqo ay wareejin karaan sidoo kalena ay weerari karaan kooxda Real Madrid ugu dambeyntii haddaynu eegno shaxda la filayo inay ku ciyaarayaan labada kooxood sidoo kalena ay kusoo gelayaan labada tababare ee Xavi iyo Ancelotti haddaynu eegno kooxda Real Madrid oo ciyaartooyga ka maqan ama ciyaartooyga ugu muhiimsan ee ka maqan ayaa goolwadaha oo taa bedelkeeda waxaa ciyaari doona goolwada Andrea Lunin balse dhibka waxa uu ka taagan yahay ama shakigu wuxuu ka jiraa daafaca gaar ahaan daafaca dhexe ee kooxda dambeedka midig ama Reitibaga waxaa la filayaa inuu ciyaari doono Carvajal bidixda waxaa noqon kara Mendy sidoo kalena waxaa noqon doona Alaba oo isagu inta Alaba ka ciyaara dambeedka bidix ama Leftibaga oo daafaca dhexe ka ciyaarsiiyo tababar Ancelotti
ciyaartooyda kale ah Militao iyo Rudiger maadaama ciyaartooyga Rudiger ku fiican yahay kubadaha sare iyo kubadaha madaxa ah oo weerarka kooxda Barcelona noqon karayo ama noqon doono ciyaartooyga Robert Lewandowski waxa dhici karta inuu Rudiger ku soo bilaabo khadka dhexe isaga laftiisa waxa la filayaa inay ciyaari doonaan Modric, Tchouaméni iyo Toni Kroos halka weerarka ay u badan tahay inay noqon doonaan ciyaartooyga Federico Valverde, Karim Benzema iyo Vinicius Junior oo shayga kaliya ama barta kaliya oo uga taagan yahay tahay daafaca dhexe ee kooxda Real Madrid boosaska kale ee kooxda waxay noqon doontaa inay ka ciyaari doonaan ciyaartooyda la saadaaliyay dhinaca kale haddaynu galno kooxda Barcelona iyaga laftooda waxaa jira dhaawaca ama maqnaanshaha ugu muhiimsan inuu yahay ciyaartooyga Araujo sidoo kalena kooxda la filayo ama tababare Xavi inuu ciyaarsiin doonin ciyaartooyga Gerard Piqué haddaba sida la sheegay tababare Xavi waxa uu doonayaa inuu ciyaartooyga Koundé oo soo laabtay uu ka ciyaarsiiyo dambeedka midig ee kooxda uu daafac dhexe noqon karayo Eric Garcia iyo Piqué sidoo kale waxaa dhici karta inuu Garcia daafac dhexe ka ciyaaro oo Koundé isaga laftiisa ka garab ciyaaro oo labada garbood ay ka kala ciyaareen Sergio Roberto iyo Balde ama ay noqon karto Balde iyo Marcos Alonso khadka dhexe kooxda Barcelona waxay noqon karaa ama ciyaartooyda la filayay ay ah Sergio Busquets, Pedri, Gavi halka weerarka ay noqon doonaan ciyaartooyda Lewandowski, Dembele waxaana la filayaa inuu noqon karo ciyaartooyga saddexaad ee weerarka kooxda Barcelona ka ciyaari doono Rafinha sidoo kale waxa uu noqon doonaa Ansu Fati ama waxa uu noqon karayaa ciyaartooyga Ferran Torres haddaba nala wadaag kooxda aad is leedahay waa ay badin doontaa kulankan El Clasico-da ah sidoo kalena waxaad barta commentiga noo la wadaagtaa natiijada aad is leedahay kooxdu waa ay ku badinaysaa kooxda aad saadaalinaysid inay badinayso haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar subscribe na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe